Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada daawadayaasha ku xiran kanaalkeena Dansheeg. Waxaan idinleeyahay Dilhaantar Wadaan Kariim. Maanta waxaanu ka hadlaynaa mowduuc ku saabsan taariikhdii dowladda Umoyiyiinta oo kooban. Sanadkii 55 Hijriyada waxaa soo shaabaxay fidnadii weyneyd, taasoo muslimiinta u kala qaybisay laba qaybood oo kala raacsan Cali bin Abi Taalib iyo Mucaawiya bin Abi Sufyaan. Sanadkii 40 Hijriyada waxaa la dilay Cali bin Abi Taalib oo ahaa khulafaa ur-raashidiinkii u dambeeyay, waxaana dilay khawaarijtii. Intaas kadib waxaa khilaafada la wareegay wiilkiisii Xasan bin Cali. laakiin xasan wuu tanaasulay oo khilaafadii wuxuu ka tanaasulay Mucaawiya bin Abi Sufyaan, isagoo dhowriya dhiiggii muslimiinta iyo inuu soo afjaro kala qaybsanaanta muslimiinta dhexdooda timi. Sanadkii 41 Hijriyada waxaa loo bixiyay sanadkii kulanka, sababtoo ah muslimiintu waxay yeesheen hal khaliif oo ah Mucaawiya bin Abi Sufyaan. shuruudihii uu Xasan bin Cali ku tanaasulay waxaa ka mid ah in khilaafada loo socoliyo kadib dhimashada Mucaawiya bin Abi Sufyaan, laakiin Xasan bin Cali wuxuu dhintay waqtigii Mucaawiya, sidaas darteed ayuu Mucaawiya wuxuu dhaxal sugo uga dhigay wiilkiisa Yaziid bin Mucaawiya. sidaas ayuuna Mucaawiya kula wareegay, wuxuu khilaafadii ka dhigay dhaxaltooyo ay leeyihiin reer Bani Umayya. sidaas ayaana ku aasaasantay khilaafadii Umoyiyiinta, waana khilaafadii labaad kadib khulafaa ur-raashidiin. Mucaawiya bin Abi Sufyaan wuxuu caasimad ka dhigtay magaalada Dimashq. Mucaawiya waqtigiisii wuxuu soo kordhiyay nidaamyo cusub ay ka mid yihiin nidaamkii diiwaanka iyo nidaamkii ilaaliyaha gaarka ah. Sanadkii 60 Hijriyada waxaa xukunka la wareegay Yaziid bin Mucaawiya, si degdeg ahna waxaa soo shaabaxay ka hor imaatinkii Xasan bin Cali, kaasoo diiday inuu la baycoodo Yaziid bin Mucaawiya. Sanadkii 61 Hijriyada waxaa dhacday dhacdadii Karbala ee lagu diray Xuseen bin Cali, waxaana dilay ciidankii Umoyiyiinta. waxaa ka dhacay Xijaas kacdoon uu bilaabay Cabdullaahi bin Zubayr, kaasoo kala qaybiyay khilaafadii Umoyiyiinta. waqtigaas laga soo bilaabo waxaa kala qaybsatay khilaafadii Umoyiyiinta, waxaana kala noqdeen qayb Shaam iyo Masar xukunta iyo qayb kale oo xukumaya Cabdullaahi bin Zubayr, kaasoo naftiisa la weecooday oo isna xukumaya Xijaas iyo Ciraaq. sanadkii 63 Hijriyada waxaa dhacay dagaalkii Xarraa, taasoo ka dhacay magaalada Madiina, wuxuuna u dhexeeyay ciidanka Umoyiyiinta iyo dadkii deganaa Madiina oo raacsanaa Cabdullaahi bin Zubayr. dagaalkan waxaa lagu jabiyay dadkii deganaa Madiina, waxaana la haystay 3 maalmood. sanadkii 64 Hijriyada waxaa xukunka la wareegay Marwaan bin Xakam. sidaas ayay khilaafadii qaybtii Marwaan ugu guurtay qoyska Umoyiyiinta. Marwaan bin Xakam wuxuu ciidankiisa u diray Xijaas si uu la dagaalamay Cabdullaahi bin Zubayr, waxayna ku guuleysteen inay ku jabiyaan meeshii la oran jiray Martu Raahid, waxayna jabiyeen 64 Hijriyada, waxaana daciiftay awoodda Cabdullaahi bin Zubayr. sanadkii 65 Hijriyada khilaafadii waxaa la wareegay Cabdimalik bin Marwaan, kaasoo hogaamiye ciidan ka dhigay Xajaaj bin Yuusuf as-Saqafi. Xajaaj bin Yuusuf wuxuu ku duulay magaalada Maka, wuxuuna galiyay go'doon, isagoo markii dambena dilay Cabdullaahi bin Zubayr, una xeedasiibay dowladiisii. sidaas ayuuna ugu midoobay caalamul islaam xukunka Umoyiyiinta sanadkii 73 Hijriyada. waqtigii Cabdimalik bin Marwaan waxaa soo ifbaxay dhibaatooyin iyo kacdoono la mid ah kacdoonadii khawaarijta oo kale. Cabdimalik bin Marwaan wuxuu sameeyay lacagtii u horeysay oo islaamku yeesho, taasoo beddelkeeda hor la isticmaali jiray lacagtii Roomaaniyiinta. Cabdimalik wuxuu ku hamiyey dhisidda iyo cusboonaysiinta, wuxuuna dhisay masjidka qudbiga dhagaxa ah ee Bayt al-Maqdis. waqtigii Waliid bin Cabdimalik waxaa la dardargeliyay furashooyinkii, waxaana la baadhiyay dowladdii, iyadoo la gaarsiiyay bariga ilaa Hindiya, galbeedka ilaa waddanka Spain. galbeedka waxaa dhammaystiray guulihii furtana wadankii Morocco hogaamiyihii Muusa bin Nadiir. sidoo kale waxaa hogaamiyey Daariq bin Ziyaad, kaasoo furtay Andalus oo hadda loo yaqaan Spain. kadib jabintii uu jabiyey boqorkii Quudiyiinta galbeed, wuxuuna ku jabiyay dagaalkii Waadilaka. sidoo kale wuxuu qabsaday caasimadii Dulaydala. dhanka bariga hogaamiyihii Maxamed bin Qaasim wuxuu awooday inuu qabsado dagaalkii Sanad maanta waxaa loo yaqaan dowlado badan oo ay ka mid yihiin Bakistaan, Rajasthaan, gobolka Punjab iyo Hindiya. intaas ayaa la isku oran jiray Sanad. sidoo kale hogaamiyihii Maxamed bin Qaasim wuxuu kusii dhawaaday inuu qabsado dhulkii Hindiya. sidoo kale waxaa la diray ciidan kale oo hogaaminayay Qutayba bin Muslim si ay u qabsadaan dhulalka ku yaal bartamaha Aasiya oo ay ka mid yihiin Uzbekistan, Kyrgyzstan iyo Qirgizistan. sanadkii 96 Hijriyada waxaa khilaafadii la wareegay Suleymaan bin Cabdimalik, kaasoo casilay hogaamiyaashii furashooyinka, joojiyana furashooyinkii bari iyo galbeedba, isagoo u sababeynaya in dowladdii ballaaratay. Suleymaan wuxuu isku dayay inuu go'doon dheer geliyo magaaladii Qistantiniya oo caasimad u ahayd Imraadoriyadii Bisantiya, laakiin wuxuu dhintay intuu go'doonkaasi socday. sanadkii 99 Hijriyada waxaa khilaafadii la wareegay Cumar bin Cabdilcasiis, kaasoo lagu naanayso kii shaneeyay khulafaa ur-raashidiin, sababta cadaaladiisa iyo wanaajintiisii maamulka dowladdiisa. 101 Hijriyada khilaafadii waxaa la wareegay Yaziidkii labaad, kaasoo celiyay dhaqdhaqaaqyadii furashooyinkii qabtayna kacdoonadii khawaarijta. sanadkii 105 Hijriyada waxaa xukunkii la wareegay Hishaam bin Cabdimalik. waqtigiisii waxay dowladda Umoyiyiintu gaadhay ballaanidii ugu fogeed, iyadoo gaadhay dhanka galbeedka, koonfurta Faransiiska, barigeena ilaa dhinacyada Shiinaha. waqtigii Hishaam bin Cabdimalik wuxuu awooday barasaabkii Andalus Cabdiraxmaan al-Qaafiqi inuu ku duulo koonfurta Faransiiska,
laakiin wuu joojiyay iyadoo lagu jabiyay dagaalkii bilaad shuhadaa ee dhacayay sanadkii 114 hijriyada. kadib dhimashadii Hishaam bin Cabdilmalik sanadkii 125 hijriyada waxaa taariikhda dowladda Umayyadeed u bilowday marxalad labaad waana awood darri iyo kala furfurasho aakhirkeena way dhacdayba. marxaladaas waxaa hogaaminaya 4 khaliif oo kale ah: Waliid bin Yaziidkii labaad, Yaziid bin Waliidkii saddexaad, Ibraahim bin Waliid iyo Marwaan bin Maxamed. waxaa la iska dhaafay dhaqdhaqaaqyadii furashooyinka. madaxdii Umayyadeed waxay ku mashquuleen kala riixashadii khilaafada. waxaa hortay fidnadii iyo kacdoonadii. arrimahaas oo dhami waxay lagu xidheen awoodii iyo dhaqaalihii dowladda. waqtigaas waxaa kordhay tartankii Cabbaasiyiinta ee gobolkii Khuraasaan iyo ballaarintii dowladooda ilaa ciidankoodii soo gaareen caasimadii Umayyadeed ee Dimashq. Cabbaasiyiintii waxaa hogaaminaya Abul Cabbaas, kaasoo jabiyay khaliifkii u dambeeyay Umayyadeed waa Marwaan bin Maxamed, wuxuuna ku jabiyay dagaalkii webiga Saab kuna dilay sanadkii 132 hijriyada. way dhamaatay khilaafadii Umayyadeed taasoo jirtay muddo 200 oo sanadood ah. qoyskeediina waxaa la wareegay khilaafadii Cabbaasiyiinta. kadib dhicitaankii dowladda Umayyadeed wuxuu sameeyay mid ka mid ah amiiradii Umayyadeed waa Cabdiraxmaan bin Daaqil. wuxuu ka cararay dowladda Cabbaasiyiinta wuxuuna tagay Andalus isagoo aasaasay dowladda Umayyadeed ee Andalus sanadkii 138 hijriyada. sidaas ayay ugu magacaabeen Cabbaasiyiintii bisaqri Quraysh. waad ku mahadsantahay daawashada mawduucan waynoo mawduuca xiga insha Allah. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان